dowladda waqooyiga Kuuriya ayaa si rasmi ah u shaacisay diyaarad aan duuliye lahayn oo casri ah isla markaana ku shaqaynaysa nidaamka AI-ga taasoo u eg diyaaradihii drone-iska ahaa ee Mareykanku hore u haystay ee RQ-4 Global Hawk lagu magacaabi jiray. Diyaaradan Mareykanka ee RQ-4 Global Hawk ayaa ah mid ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan uguna awoodda badan ee aan duuliyaha lahayn ee ay isticmaalaan ciidamada cirka ee Mareykanka gaar ahaan qaybta sirdoonka iyo kormeerka. Waxayna diyaaradani caan ku tahay inay hawada ku jiri karto maalmo isku xiga oo aysan hal mar dhulka u soo degin. Muuqaalada diyaaradan oo lagu baahiyay wakaaladda rasmiga ah ee waqooyiga Kuuriya ee KCNA ayaa sidoo kale waxaa la arki karaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un oo dhex taagan xarunta lagu hormariyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn taasoo ku taala caasimadda Pyongyang. Diyaaradan uu soo bandhigay Kim Jong-un ayaa ah diyaaradu eeg isla markaana laga soo guuriyay diyaaradii Mareykanku hore u haystay ee RQ-4 marka la eego xagga dhismaha nishqadda iyo weliba cabirka taasoo keentay tuhun ah in waqooyiga Kuuriya ay suurtagal tahay inay jabsatay ama si kale ku heshay xog muhiim ah oo la xiriira nishqadda iyo farsamada diyaaradda Mareykanka. Qaar ka mid ah khubarada dhanka difaaca iyo sirdoonka ayaa ku doodaya in waqooyiga Kuuriya ay si qarsoodi ah ku heshay xogta nishqadda iyo barnaamijyada farsamo ee diyaaradda Mareykanka ee RQ-4 taasoo suurtagelisay in waqooyiga Kuuriya ay nishqadayso diyaaradu eegtan Mareykanka taasoo aad arki karto inaysan waxba ku kala duwaneyn labadan diyaaradood. Diyaaradan Mareykanka hore u haystay ee RQ-4 Global Hawk ayaa leh awoodo ay ka mid yihiin inay hawada ku jiri karto in ka badan 32 saacadood isla markaana dhererka duulimaadkeedu uu gaarayo 60,000 oo fiid qiyaastii oo noqonaysa 18,300 oo mitir oo kor ah iyadoo leh raadaar aad u casri ah iyo kaamirooyin awood u leh inay arkaan humaag aad u fog xitaa xilliyada habeenkii iyo haddiiba xitaa cimiladu xun tahay. ilo sirdoon ayaa sheegaya in Kuuriya diyaaradan ay soo bandhigtay ay leedahay awood la mid ah tan Mareykanka waxayna noqonaysaa diyaaradan mid si weyn u bedeli karta isdhexgalka istaraatiijiyadeeda gobolka gaar ahaan marka la eego in waqooyiga Kuuriya ay hore u haysatay awood nukliyeer iyo gantaalo riddo dheer. Horaantii sanadkan waxaa jiray warbixino sirdoon oo ay heleen sirdoonka Mareykanka iyo kuwa koonfurta Kuuriya taasoo sheegaysa in waqooyiga Kuuriya ay soo bandhigayso diyaarad cusub oo aan duuliye lahayn taasoo laga soo minguuriyay diyaaradda Mareykanka ee RQ-4 Global Hawk. waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan muuqaalo la helay oo muujinaya tijaabooyin lagu sameynayo diyaaradan cusub iyadoo duulaysa. khubarada falanqaysa arrimaha difaaca gaar ahaan kuwa ka tirsan hay'adaha 38 North Iran Corporation ayaa tilmaamay in diyaaradu eeg RQ-4 oo ay waqooyiga Kuuriya leedahay ay ka dhigan tahay in dowladda waqooyiga Kuuriya ay si weyn u horumarisay awooddeeda teknolojiyadda AI-ga iyo xagga sirdoonka. warbixin laga soo saaray xarunta 38 North waxay muujinaysaa in waqooyiga Kuuriya ay sanadihii u dambeeyay xiriir sirdoon la lahayd saynisyahano u dhashay Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo xitaa Mareykanka kuwaasi u suurtageliyay waqooyiga Kuuriya inay horumariso barnaamijkeeda AI-ga ama macmalka garaadka. inkastoo waqooyiga Kuuriya ay wajahaysay cunaqabatayno haddana waxaa muuqata in waqooyiga Kuuriya ay si qarsoodi ah gacanta ugu haysay cilmi baarisyo muhiim ah oo ku saabsan barnaamijka AI-ga ee dalalka awoodda leh hadda ku tartamayaan. Diyaaradan cusub ee waqooyiga Kuuriya soo saartay ayaa sidoo kale lagu tilmaamay inay leedahay awoodaha kala ah kor u kac degdeg ah, duulimaad joogto ah oo dheer iyo qalab kormeer oo casri ah iyo hawlgallo sirdoon oo xooggan. waxaa kaloo muhiim ah in la xuso in diyaaradan cusub ee waqooyiga Kuuriya ay xambaari karto isla markaana lagu rakibi karo hub culus taasoo ka dhigaysa diyaaradan mid aan ku koobnayn oo kaliya kormeer iyo basaasid balse sidoo kale ay ka hawlgali doonto goobaha dagaalka. haddii xogahan ay run noqdaan waxay si weyn u bedeli doontaa diyaaradani xisaabinta istiraatiijiyadda gobolka gaar ahaan haddii diyaaradan ay leedahay qalab AI ah oo u ogolaanaya inay si madax bannaan u go'aansato bartilmaameedyada cadowga. waxaa kaloo soo baxaysa warbixino sheegaya in dowladaha Shiinaha, Ruushka ay si hoose uga caawiyeen dowladda waqooyiga Kuuriya barnaamijkeeda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo lagaga bedelanayo hub iyo ciidan ay dowladda waqooyiga Kuuriya u dirayso Ruushka. hogaamiye Kim Jong-un ayaa u muuqda in dalkiisu doonayo inuu ka mid noqdo quwadaha teknolojiyadda sare ee military. muuqaalkii uu dhowaan ka soo muuqday Beijing isagoo la jooga hogaamiyaasha Ruushka iyo Shiinaha ayaa calaamad u ah in waqooyiga Kuuriya ay si rasmi ah u doonayso inay ka baxdo go'doominta caalamiga ah ee ku jirtay kana mid noqoto ciyaartooyada waaweyn ee caalamka. dhinaca kale dowladda Mareykanka iyo xulufadeeda waxay u arkaan horumarintan mid khatar ah. warbixin ka soo baxday hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA bishii May
ayaa sheegtay in waqooyiga Kuuriya ay ku jirto xaaladeedii istiraatiijiyadeed ee ugu xooga badnayd 10 sano ee la soo dhaafay waxayna hadda leedahay awood militari oo halis gelin karta ciidamada Mareykanka iyo xulufadooda ku sugan Aasiyada Bari soo saarista diyaaradan cusub ee waqooyiga Kuuriya haddii ay si dhab ah u leedahay awoodaha lagu tuhmayo ee la midka ah midda ay leedahay tan Mareykanka ee RQ-4 waxay noqon kartaa talaabo weyn oo ay kaga hortagto kormeerka joogtada ah ee ay sameeyaan diyaaradaha Mareykanka ee RQ-4 iyo kuwa kale waxaa sidoo kale suurtagal ah in waqooyiga Kuuriya ay diyaaradan u isticmaasho sidii qalab sirdoon iyo xitaa weerar ay ku beegsan karto bartilmaameedyo muhiim ah taasoo si buuxda u bedeli karta istiraatiijiyadda gobolka waxaa sidoo kale muhiim ah in la fahmo in barnaamijkan AI-ga ee diyaaradan waqooyiga Kuuriya ku shaqaynayso uu yahay mid khatar gelin kara sistamyada iyo weliba awoodaha difaaca ee Mareykanka nidaamka AI-ga militarigu wuxuu awood u leeyahay inuu go'aan iskii u qaato falanqeeyo xogta laga helo raadarada iyo inuu yareeyo ku tiirsanaanta bini'aadamka haddii ay diyaaradani leedahay AI noocaas ah waxay noqonaysaa qalab halis ah ugu dambeyntii arrintani waxay muujinaysaa isbeddel weyn oo ku yimid awoodda tiknoolajiyadda waqooyiga Kuuriya taasoo noqon karta mid sababi karta tartan cusub oo militari oo ka dhex dhaca waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka gaar ahaan marka la eego awoodda ay diyaaradan u leedahay inay si madax bannaan u shaqayso ama go'aan u qaadato iskeed isla markaana muddo dheer duusho kuna rakiban yihiin qalab sirdoon oo casri ah haddii waqooyiga Kuuriya si dhab ah u heshay ama u koobiyeysay nashqadda diyaaradda Mareykanka ee RQ-4 Global Hawk waxay noqonaysaa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu saameynta badan ee dhanka sirdoonka iyo difaaca qarnigan waxaa la filan karaa in sanadaha soo socda la arki doono xoojinta dadaalada dhinacyada Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ee ku aadan inay ka hortagaan la socodka horumarinta militari ee waqooyiga Kuuriya iyadoo laga yaabo inay kordhiyaan duulimaadyada kormeerka barnaamijyada difaaca iyo xitaa qorshayaasha weerar hordhaca haddii ay xaaladdu sii adkaato hase yeeshee horumarka diyaaradan cusub ee aan duuliyaha lahayn ee waqooyiga Kuuriya ayaa caddayn u ah in tartanka tiknoolajiyadda militari ee caalamku uu galay weji cusub isla markaana ah mid uu hagayo sirdoonka macmalka ah hawada sare iyo weliba tiknoolajiyadihii ugu dambeeyay ee caalamku ku tallaabsaday